maxaa yeelay suu sheekh shariif u sheegay marxalado badan iyo xaalado badan yaa la soo maray oo qof walba wax ku soo daraayay laga soo bilaabo cabdiqaasim allah caafiye waa yara xanuunsan yahay allah caafiye uu ka soo shaqeeyey cabdullaahi yuusuf waxbuu ku soo daray allah u naxariisto sheekh shariif waa biila taagan yahay anaa markhaati ka ah contribution weyn yuu ku lahaa dowladnimada iyo ciidan dhiska iyo siyaasadda xasan sheekh naftigiisa taramkiisa koowaad waa lahaa anna waa ku darsaday marxaladahaas o dhan iyo soo maraayeen inay naga khasaarto marka ma rabno oo aan shisheeye aan u dhiibno taladeenna aan u dhiibno waa ka baaqsan karnaa waana ka maarmi karnaa laakiin hadday noqoto waa ku soo dhowaynaynaa si ay noo kala dhex galaan oo xal ay uga keenaan xalka aan rabnana waa very simple dalkan waa inuu doorasho aado dalkan waa in siyaasad degan oo stable ah ee loo dhaqaaqo oo violence iyo conflict iyo dhibaato halkaas ay nooga harto maxaa yeelay intaana noogu filan ceeb intaana foolxumo noogu filan sharaf darro intaana noogu filan marka madaxweynow intaan ha dhaafin waxaan kuu fidinay martiqaadkaas noo imow doorasho u soo diyaar garow wax kale lagaama rabo la imow ajandahaaga siyaasadeed ka iibi baarlamaanka sidii shalay laguu doortay markii ka horreysana laguu doortay yaa lagu dooran haddii ilaahay kugu talagalay ilaahay kuu qadaray yaa og qofkii madaxweyne noqonaya sheekh shariif baa noqon kara hadduu ilaahay u qoray anaa noqon kara qof kalaa noqon kara lama yaqaano laakiin gacanteena aysan ku burburin dowladnimada yarta ah oo aan haysanno shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay marka haddii madaxweyne xasan sheekh uu intaas diido walaalayaalow na garab istaaga maxaa yeelay annagaa xaq ku soconna annagaa ku soconna wax dadka u wanaagsan dalkan u wanaagsan dowladnimadan u wanaagsan annagaa ku soconna inta aan marnay marxalada fiiriya oo aan raadinayno madaxweyne xasan sheekh inuu talada dhexda dhigo aan raadinayno shacabka soomaaliyeed waa rafaadeen dhibaatooyin badan baad soo marteen hadda naftigeeda marxalado iyo duruufo adag aad ku jirtaan maciishadaa qaali idinku ah noloshaa qaali idinku ah shaqa la'aan baa idin haysa waa idin barakicinaya in badan oo idinkeeda ka mid ah nala safta oo na garab istaaga ma aha dadka muqdisho degan oo keliya soomaaliya dadka degan oo dhan na garab istaaga nabadda garab istaaga dowladnimada garab istaaga doorashada garab istaaga markaasaan wada guulaysanaynaa markaas oo aan annagoo wada soconna xasan sheekh maxamuud gacmaha ka qabanaynaa oo jidka saxa aan ku soo ridaynaa ciidamada qalabka sida shacabkiina taageera walaalihiin taageera hooyooyinkiina taageera madaxdiina hore taageera oo shalay idin soo dhistay haddaba gelina haddii la iin diro wax aan sax ahayn oo aad ku burburinaysaan qarannimadiinna iyo dowladnimadiinna aad ku burburinaysaan ha gaarina annaga oo iswadanna ilaahay idankiis xasan sheekh oo nala socda annagoo iswadanna yaan rabnaa doorasho inaan galno hadduu xasan sheekh naga haro waxaan rabnaa annaga oo iswadanna iyo shacabka oo iswadanna inaan xasan sheekh gacmaha ka qabanno hadday noqoto annaga oo iswadanna shacabka oo iswadanna oo aan wadanno iyo ciidamada qalabka sida inaan gacmaha ka qabanno xasan sheekh maxamuud waxa weeye waxa aan u soconno waa intaas xasan sheekh maxamuud annaga cadow kuma nihin waa walaalkeen shalayna annagaa xukunka u dhiibnay isagana dee waa noo dhiibay waxayna iska ahayd wax sunno ah oo socday oo soomaaliya lagu ammaano oo maalin walba aan meel ku gaarayno